oo breakfast-ga ama maartay maxaan ku markii ardaygu xiiso lahayn ama markii fasaxa loo soo aado xisooyinka laga soo baxo ay ku nastaan taasna ayaga dhisay aadna ugu mahadcelinayna arrimahaas runtii labadaas arrimood oo ay jaamacadda ay wax ka qabteen xagga fiiga iyo xagga cafeteria-da waxaana jecelnahay insha Allah Ilaahay inuu ka abaalmariyo xasanaadkooda ugu daro waxyaalaha kale ay bixiyaan oo sadaqada ay bixiyaan oo wadanka ay ka qabtaanna Ilaahay maartay maxaan ku raadin uu isaacidiyo waxaana jecelnahay insha Allah ku booreyna shirkadaha kale oo ayagoo kalaana inay doorkooda ay qaataan oo sida dahabshil maartay ardada uga bixiso fiiga ay uga bixiyaan ardada masaakiinta aan waxba wadi karinin oo rabo waxbarashadooda inay sii wataan inay maartay bulshada Soomaaliyeed nimanka maartay shirkadaha leh ganacsatada dadka maartay awoodi kara inay ka qayb qaataan oo ay ka bixiyaan ardadaas fiiga si loogu helo mustaqbalka Ilaahay haduu yiraahdo jiil wadankooda iyo dadkooda iyo naftooda anfaca bal markana aynu gaadhno oo aynu ku daadegno magaalada Muqdisho waa magaalo baaxad weyn isla markaana ay ku nool yihiin dad tiro badan waxa ka furan jaamacado dhowra jaamacadda Muqdisho waxay ka mid tahay jaamacadaha sida weyn uga shaqeeya magaalada Muqdisho gudoomiyaha jaamacadaas ayaan waraysi kala yeelanay bal hawlaha jaamacadda iyo sida ay wax u yihiin ama halka ay wax u marayaan waxaan u faraxsanahay maanta daabshino nala jooga alloo siyaadi waxyaalo badan dalka ka dhisan marka aqoonta waxaan rabaa daabshino haddaan manduub nala joogaata wax qiimo badan tadxiyaan dalkan ku wadno tadxiyada aan ku wadno iyo nafurnimada naga qayb qaato ardada kafaalaha siiyo kafaaladaas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay laakiin leeba aan u baahanahay kafaalaha ardayda dhismaya marka aad iyo aad ajri xasanaad ka yeesay waa sadaqa jaariyo ardada waxa la geeyo marka aad iyo aad aan ugu shukrayna daabshiltii aad aan u qiimeeyna idinkay adiina waa maasan ardayda jaamacadaha Muqdisho ku jira ayaa iyagu mar walba waxay isku dayaan in ay horumar ka sameeyaan dhinaca waxbarashada Maxamed Cali waa arday wax ka barta jaamacadda Muqdisho wuxuu ka waramayaa sida shirkadda dahabshil ugu fududeyso adeegyada ay u baahan yihiin anaga markaan isku soo raacno macnaha ardaydu koox isla markiiba anaga ku daahan meesha waa iskaga tagnaa oo sidii macnaha xiisadii xitaa markii bareeg aan soo baxnaa si oo macnaha isla markii aan ugu noqon xiisadeena oo fiiga xaaladda wadan ka jirto waa iska taqaana xilli dambe lama socon karo marka waxaan ka faa'iideysanaa fursadaha macnaha nasiinayso dahabshil qaybta caafimaadka bal aynu ka bilowno dhinaca magaalada Muqdisho waxa ku yaala isbitaallo aad u tiro badan Dr. Cabdulqaadir Cali waa agaasimaha isbitaalka Banaadir waxa uu ka waramayaa isbitaalkaasi baahiyaha yaala iyo deeqo kala duwan oo shirkadda Dahabshiil ay gaarsiisay maanta maasadan waxa soo leeyahay hay'adda Dahabshiil Muqdisho garaan shirkadda Dahabshiil alxamdulillah kullu dad ma faayaan dalku moobta bukaan badan iyo shaqaale badan oo waxba aan qaadan joogaan maanta waxaan loo keenay maanta oo ah moobta soo jirnaa iyo shidaalka kullu waxaan beetariyaan dadku isbitaal kale ee Madiina ayaa ah isbitaal aad u weyn oo si weyn u shaqeeya Dr. Maxamed Yuusuf Xasan waa agaasimaha isbitaalka Madiina maraan xafiiskiisa ku booqanay ayuu nooga waramay xiriirka uu la leeyahay shirkadda Dahabshiil iyo baahiyaha shirkadda Dahabshiil wax uga qabatay ama ay ka daboosho shirkadda xawaalada Dahabshiil ay noogu deeqday 30 fuusto oo shidaal ah 30kaas fuusto aan isticmaalayno muddo 35 maalmood camal aan isticmaali doono shidaalkaasi waa shidaal aad muhiim u ah waa midka aan mataqaanaa yani qallimada ku galno daawooyinka aan haysano conservationkeeda iyo energy isbitaalka loo baahan yahay noo masaabaxayo marka hay'adda Dahabshiil aad bay u maasan tahay jazakumullah waana ugu mahadcelinayna waxa kale oo jiro in Dahabshiil ay nala wado hool oo aad muhiim u ah oo aan ka fulinayno qaybta maartay
haweenka oo qaybahan oo umulisada maternity ward oo aan ka dhisoohayno saalo qalliina isbitaalka Madiina qofka yaqaano ay yaqaaneen waa isbitaal oo baaxad weyn leh marka waxa dhacda alaaba haddii naagta yacni la garto in maaragtay u baahan tahay qalliin masaafada u dhaxayso qaybta maternity-da iyo tiyaatarka qalliinka masaafad aad u dheer waaye oo dariiqeedana aan aad u fiicneen marka waxaan garanay in aan masaafada soo dhaweyno oo isla qaybtii maternity-da markii gabadha ay dhali weyso in inta la soo qaado la geeyo qaybtaas maternity-da yacni tiyaatarka la geeyo oo lagu dhaliyo within adiga yacni 5 meter ay u dhaxeeyaan oo awal soo qaaditaankii iyo dhibkii badnaay oo ay ka ammaan helayso marka qaybtaas samaynteeda oo juhdi badan muddadan aan ugu jirnay waxaa aad noogu fududeeyey oo noo magaciisiyey shirkadda xawaalada oo dahabshiil yuusuf xasan maxamed waa agaasimaha isbitaalka Kaysanay oo ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ka furan waxa uu xog waran naga siiyay balbaahida taala isbitaalkaas iyo deeqo ay gaadhisay shirkadda dahabshiil muddadii isbitaalkaasi oo furaa aad iyo aad u ballaaran u jeedinaya shirkadda dahabshiil oo maanta isbitaalka Kaysanay soo gaarsiisay deeq shidaal oo dhan 25 fusto deeqda shidaalka waxay wax weyn ka taraysaa baahida isbitaalku uu qabo dhinaca shidaalka shirkadda dahabshiil ma aha markii ugu horeysay oo ay deeq keentay isbitaalka Kaysanay hadda ka hor ay deeq noo keentay bal aynu u soo kacno dhinaca iyo magaalada Garowe oo aynu ka nimaadno dhinaca magaalada Muqdisho aynu ku soo degno magaalada Garowe iyo baaxadeeda waxna aynu ku ogaano bal hawlaha dhinaca arrimaha bulshada ee shirkadda dahabshiil ay gobolkaasi Nugaal ama magaalada madaxdiisaasi Garowe ay ka qabatay waa kan Cabdulaahi Salaad oo arrimahaasi ka waramaya iminka mashruuc socda oo ku saabsan halkan meelahood loogu talagalay dadka maskaxda ka jiran oo maaragtay dadka waalan iyo dad dhinacaas oo loogu talagalay in meel lagu xanaaneeyo loo dhiso marka shirkadu waxay ku bixisay lacag ilaa $20,000 gaaraysa balanqaadyo kale oo sii sameeyeen runtiina waxaanu oran karnaa waxaanu nahay shirkadda kaliya ee guuleysatay lacag inta deegaankan inaan maaragtay ugu deeqo arrimaha bulshada magaalada Boosaaso waxa ku yaala isbitaal weyn oo muddo badan shaqaynayay Dr. Cabdilaahi Saciid Muuse waa agaasimaha isbitaalka Boosaaso wuxuuna sharxayaa hawlo badan oo shirkadda dahabshiil ay ka qabatay isbitaalkaasi ilaa inta halka joogay dahabshiil waxay ku bilowday markii hore in darbiga isbitaalka ku wareegsan oo aad u dayacan inay xoga tagaa waxay ku xigtay inay dhiseen meel dhiigga lagu kaydiyo oo qalabkii loo baahnaana ay keeneen teeda kaleetana waxay aad iyo aad uga qayb qaateen dhismahan hadda cusub oo socda waxayna ka mid yihiin shirkadaha jooga dalka oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno hawsha ay ka qabteen isbitaalka magaalada Laascanood waxa ku yaala isbitaal iyadoo bulshada gobolkaasi ku noolina ay aad u tiro badan yihiin waxa timi baahi loo qabay ama markaasi joogto ahayd in isbitaalkaasi lagu kordhiyo waadho dheeraada iyadoo dadweynaha gobolkaasi ama magaalada madaxdaasi Laascanood ku noolina ay u baahnaayeen inay waadho dheeraada helaan waa kan Axmed Aadan agaasimaha isbitaalka Laascanood oo ka waramaya baahidii taagneyd iyo isbitaalkaas waadho lagu kordhiyay aad baan ugu faraxsanahay isbitaalka muhiimka ah ee noo dhisay ninka odayga ah dahabshiil xubad fiican buu qabtay oo muhiim ah oo dadka iyo dalka iyo ummadda badan oo marka waxaanu ka codsanaynaa wixii kale wax qabadahay uu noogu dari karo inuu noogu daro aynu soo kacno dhinaca iyo xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxaa ka furan dugsiga tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka ee markaasi iyaga neerska loo yaqaano dugsigaas magaaladu ma lahayn xilliyadii hore waxaana keentay baahi dadka degmadaasi ama gobolkaasi ku nooli ay u qabeen inay helaan kalkaaliyaal caafimaad oo wax kala qabta bulshada arrimaha caafimaadka ardaydii ka qalin jabisay iyo xilligii la furay
iyo dhismihiisa cidda hirgelisayba waxay nooga waramaysaa marwo Faadumo Cismaan Axmed oo ah maamulaha dugsiga tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka ee magaalada Burco. saddex lood ayaa imika soo galay lodkii horeeyay uu baxay una shaqeeya oo ahaa 31 arday lodkii labaad oo ah 24 ardayna waxay marayaan sanadkii labaad ayay imika dhameysteen lodkii saddexaad oo iyaguna soo galayna waxay ku jiraan sanadkii koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil oo deeqdii ugu ballaarneyd ee iskuulka bixisay oo ay ka mid yihiin dhismayaashan oo iskuulku joogo maanta dhammaantood qalabka hoos yaalla iyo dhismahaba ay ku deeqday shirkadda Dahabshiil 5 qol 2 galaas iyo qalabkooda 2 xafiis kan kale ee qalabeysan oo imika joogno library-ga dhismihiisa dhammaan waxa ku deeqday shirkadda Dahabshiil yani waa wax aan cidina ku qaban karin kale oo cid kasta oo kale qabataaba ay u arkin had yani wax weyn inay qabteen ama aanay kuuba qabanayno de inta soo codsiyo aan qoray cidina noogama soo jawaabin marka waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil waxaan leenahay ilaahay wixiisa ha barakeeyo waa deeqsi geesiya oo yani hantidiisa ku bixiya meelaha looga baahan yahay ee ummadda ka manafacad magaalada Hargeysa isbitaallo dhowr ah ayaa ku yaala isbitaalka Hargeysa Group Hospital waa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo dhismihiisa dhowr iyo 50kii ay dhistay dawladii Ingiriisku maamulaha isbitaalkaasi Axmed Daahir Aadan ayaa inoo faahfaahinaya xiriirka ka dhaxeeya shirkadda Dahabshiil iyo waxyaabaha ay ka qabatay halkaasi waxa naga dhaxaysa shirkadda Dahabshiil ee wada shaqeyn wanaagsan ha noqoto dayactirka isbitaalka ha noqoto way ka qayb qaataan ha noqoto daawooyinka isbitaalka ay mararka qaar ka qayb qaataan ha noqoto qaybta waalida oo ay caawiyaan marwo Maryan Aadan Nuux waa madaxa waarka xumadda ragga isbitaalka Hargeysa maraan waarka dhexdiisa kula kulanay ayaan wax ka weydiinay bal waxa iska bedelay waarkan ay madaxda ka tahay intii ka dambeysay waqtigii shirkadda Dahabshiil dib u dhiska iyo qalabaynta ku samaysay run ahaantii waarkan markii hore sidoo ahaa iyo sidoo maanta uu yahay farq weyn baa u dhaxeeya waana wax ilaahay loogu mahadiyo iyo shirkadda Dahabshiil baahina ma dhamaato runtii nasiib wanaag albaabada meel yaro furayaashii way naga xunyiin laakiin daaqad naga jabtay iyo silig naga go'ay daaqad siligeedii naga go'ay midnaba ma hayno waana nuu soo ducaynaynaa shirkadda waana nuu mahadnaqaynaa shirkadda madax iyo mijinba waana ku mahadsantihiin hawsha fiican ee nala qabanaysan inay nooga kordhisan mooyeen inay nooga yaraysaanna ilaahay kama rajaynayno magaalada Hargeysa waxa kale oo ku yaala isbitaalka Adna Maternity Hospital waxa dhismihiisa iyo hirgelintiisa gacanta ku haysay marwo Adna Aadan Ismaaciil waxaana si rasmi ah loo furay sanadkii 2002 Dr. Adna waxay ka waramaysaa hawlaha isbitaalkaasi isbitaalkan oo ah isbitaal aan ugu talagalay in umulaha wax loogu qabto markii dambana hadana xanuuno kale iyo hawlo kale iska soo galeen wayde waa laga maarmaan bay noqotay isbitaalkan waxaan hindisay inaan dhiso anagoo yar Allah yarxamo abahay adan dhakhtar baan igu beeray jacaylka caafimaad ama u shaqaynta ummadda ilaahay wuxuu amarkiisu ay ahayd in markii aan hawlgab noqdo inaan kan bilaabo alxamdulillah dad badan baa caawiyay shirkadda Dahabshiil ba kamid ah oo aan ogahay inay meelo badan oo samafal laga wada ay gacan siiso dad badan oo baayac mushtari oo Hargeysa degan Soomaaliland degan qaar dibadaha jooga ayaa xoog ii caawiyay isbitaalkii uu dhismay 2002 uu furmay mahad weyn baan u haynaa dadkii caawiyay